السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada mar kale iyo dabka efficacy iyo kooraskeenii inoo socday ahaa forever model so waxaa jirta muddadii uu kooraskani socday su'aalo aad iyo aad igu soo noqnoqonayay oo ahaa forever model iyo mataqaanaa su u shaqeeya iyo mataqaanaa see loo isticmaalaa su'aalo badan oo caynkaas igu soo noqnoqday iyo su'aalo badan oo badankeeda igu soo noqnoqdeen oo ah dhammaan casharadan aan dhiganay see la isugu xidhaya so si aad daba isugu xidho dhammaan casharadan aynu qaadanay waxaan isku dayayaa bal inaan quick session yar inaan sameeyo oo bal min a ilaa z qaabka uu forever model isugu xidhan yahay inaan bal insha allahu aan caawa mataqaanaa in yaroo ka gaadhsiisa inaan diyaariyo so sessionkan marka waxa weeyaan session kooban mataqaanaa waan samayn doonaa qaar badan oo mataqaanaa trick habits badan waan samayn doonaa san horeba u sameeyey oo way ku jiraan youtube-ka telegramka waad ka heli kartaa dad kusoo biirta waad ka heli kartaa telegramka so markaa dabaan insha allah hore u galo horta marka ugu horta forever model waa maxay forever model waa mataqaanaa model ka mid ah istaraatiijiyadda act waa model ka mid ah so waana model mataqaanaa ah modeladii ugu dambeeyey weliba latest modelskii ugu dambeeyey ee istaraatiijadan ay yeelato so koley mataqaanaa badankiina waad garanaysaan ama waad aragtay sadaabiyo ama mataqaanaa cid ku tiraargaraysa un forever model so haddaba bal waxaa isku dayi doonaa intaan ku tiraargarayna forever model horta bal maxaynu u baahan nahay horta key conceptska ama waxyaalaha muhiimkeena oo ah inaynu markaynu isticmaalayna forever model waxaa kow ka ah irl erl waa casharkeeni koowaad kani casharkan waa maxay waa casharkeena koowaad iyo keena labaad baa ka fargaraynaya casharkaas so dib usoo daawo haddaad soo daawan cashar koowaad iyo ka labaad halkan waxaan ku samayn doonaa insha allah isna isagoo in yaroo quick recaba cashar ku xiga waxa waa casharka smt-ga ama mataqaanaa waana casharkeena saddexaad marka conceptka saddexaad labaad inu baahana waa maxay waa smt waan kasoo hadlay casharka saddexaad si fiican usoo daawo smt da si fiican ugu soo dhexeli doontaa change in state of delivery oo ah casharkii ugu dambeeyey oo ah casharka shanaad kaana waan kasoo hadalnay so haddaba kilzoniska oo caawa idinku cusub baynu baahannahay haddaba inaynu more focus ku ahaano so haddaba shanta ugu muhiimsani waa shanta ob-ga ama change in state of delivery mataqaanaa smt divergence iyo internal to external so intaas horta u baahan nahay markaynu rabina ku tiraargarayno mataqaanaa forever model muhiimadeedu waa inta horta inta ugu muhiimsan aynu ku tiraargarayn doonaa waa intaas si fiican u fahan talabaad waxa weeyaan one by one isu dul istaagna marka one by one aynu isku dul istaagno waxaynu u baahan nahay conceptka ah irl to erl inaynu isticmaalno inta badan amaba ma isticmaali doono badanka forever model erl to irl ma isticmaali doono mataqaanaa erl to erl irl to irl ma isticmaali doono external to internal badana kuma tiraargarayn doono laakiin trade waxaan ku qaadan doonaa internal range liquidity to external range liquidity baynu ku tiraargarayn doonaa oo irl maxaan kusoo qaadanay internal range liquidity oo maxaynu u naqaanay keliyata fair value gapka baynu u naqaanaa so fair value gapka waa ka ugu muhiimsan markaynu isticmaalayno modelkeena so erl waa maxay waa external range liquidity oo maxay ah all highs and lows inoogu soo sokeeya weeyaan so pricekeena maxaynu calaamadinaynaa mar kasta waxaynu calaamadsananaa fair value gapkeena so halkeenu eeganaynaa daarashakeenu saxanaynaa marka hore waa inay biaskeenu markuu bullish yahay waa inaynu eeganaa fair value gap bullish ama markuu structurekeenu yahay maxay structure uptrend waynu soo calaamadsanaa fair value gap bullish fair value gap si laynoogu yimaado aan u target garayna maxay external range liquidity-ga inagoo target garayna maxay internal range liquidity oo ka imanayna so intaasna clean maaha okay xiga weeyaan waa smt divergence smt divergence waa maxay smt waa maxay waa smart money tool smart money tribe smart money technique way magacyo badan tahay so laakiin waa maxay waa dabin kaasun baynu wada isticmaali doona oo ah maxay in laysku dagayo so casharka smt-ga baa si fiican ugu soo fahmaysaa qaybtaas si fiican ugu soo noqo maxayna tusaysaa marka correlationka ka dhexeeya laba beer ama laba asset mataqaanaa correlationka ka dhexeeya bayna tusaysaa okay welibana waa maxay halkuu naga tusaya badankana aynu focus saarayna inay smt-deenu ka dhacno maxay irl ka dhexdiisa si aynu u taargedirayno maxay erl levelska so laakiin badana waxay ka dhacdaa external iyo internal labadaba way ka samaysataa mataqaanaa smtdu so lakiin inagu tabian focus garaynaynaa
SMT da ka dhex samaysmi doonta maxay IRL-ka ama fair value gapka SMT da ka dhex samaysmi doonta baynu focus garayn doonaa soo intaasna clean maaha okay change in state of delivery ga dabay markaa u nimaadno change in state of delivery waa maxay waxa weeye waa market the entry point baartu isticmaalaynaa maxaanu isticmaalaynaa waa entry point waa kow maxaynu isticmaali doonaa haddana market shift after liquidity is taken maxaanu isticmaali doonaa iyadana market shift structure ahaanna waynu isticmaali doonaa oo labadaba way inoo buuxin doontaa casharkeena shanaad dib ugu noqo si fiican baad u fahmi doontaa okay change in state of deliverygu haddaba haddaan sharaxo sug SMT si fiican usoo sharaxno SMT-dan tusaalayaal koobaad ka siinaya labadan beer kan waa beer A tusaale ahaan kanina waa maxay waa beer B beer A maxaynu ka rabnaa waxaa la joogaa IRL-kii ama fair value gapkanu dhex joogaa so maxaynu aragnay inuu price-keennii ay ku fiilgarooday lacagtani inay qaaddo haygan so that means maxaa dhacaya SMT baa samaysantay marka loo eego halkii beer B oo waa maxay beer B muxuu qaaday haygii buu qaaday isagu so markuu haygii qaaday that means halkaa waxaa taalla SMT SMT-daas ayay ka dhex dhalatay laba beer oo isku jihaa ama kala jihaa so laba beer oo laakiin maxay ka dhexeeya correlation ama relation laba lacagood oo leh dhexdooda buu ka samaysmay okay SMT markaas soo dhacda waa maxay lacagtu haynu bixino euro USD aynu bixino tanna aynu bixino maxay JBP USD aynu bixino maxay GBP USD so euro USD baa ku fiilgarooday inay qaado haygan euro USD na way qaaday hayga so that means SMT baa dhacday casharkaas sidaad u fahantana waxaad si fiican ugu noqotaa casharkeena saddexaad okay change in state of delivery-guna waa maxay maxaynu isticmaali doonaa market entry point baanu isticmaali doonaa maxaynu isticmaali doonaa kale market structure ahaan waynu isticmaali doonaa okay after he liquidity taken so maxaynu focus garaynaynaa in liquidity la qaado horta marka ugu horeysa so waxaynu eeganaynaa liquidity ugu dambeeya la qaaday baynu eegaynaa okay liquidity ugu dambeeya la qaaday waa maxay waa kee waa kan iyo kan so halkana maxaa la qaaday liquidity gana la qaaday so tana liquidity gana la qaaday soo ma liquidity ugu dambeeya la qaaday baad eegaysaa markaad labada soo calaamasto liquidity ugu dambeeya la qaaday baad waxaad eegaysaa kandhalkii qaaday markaad kandhalkii qaaday baad eegaysaa soo lacagta kandhalkee baa qaaday waxaa qaaday kandhalka buulishka baa qaaday soo maha so kandhalkan buulishka baa qaaday so kandhalkaasaynu isticmaali doonaa maxay change in state of delivery ama OB kandhal kaasaynu ka dhigan doonaa so kandhalka open price-kiisa baynu dhiganaynaa calaamadina leenahay waa maxay waa change in state of delivery-geeni maxaynu isticmaalnay waxaynu isticmaalnay mar waxaynu isticmaalnay inuu yahay market structure shift oo maxaynu rabnaa in price-ku uu jebiyo oo uu banaankiisa ku xidhmo candle jebiya mataqaanaa open price-kiisaas oo banaankiisa ku xidhma baynu baahannahay waa kow waa number laba oo in laynoogu soo laabto inu baahannahay si aynu ugu soo trade-garayno nugu isticmaalno maxay ase entry point kana waa la mid waa kan price-keena muxuu sameeyey wuxuu yimid liquidity sweep buu sameeyey liquidity sweep candle-kee baa sameeyey waxaa sameeyey candle-kan so candle-kan open price-kiisa calaamadso maxaad ku calaamadsanaysaa change in state of delivery maxaynu baahannahay in candle-kaa la qaado so kan ma qaadid buu noqonayaa maya ma noqonayo sababtu waa maxay week buu ku qaaday oo maxaynu baahannahay in bari lagu qaado candle-kee baa bari ku qaaday so candle-kan baa ku qaaday markuu bari ku qaaday maxaa dhacday maxaynu isticmaalnay markan market shift structure ahaan baanu isticmaalnay isaga oo open mataqaanaa markii isaga laynooga kormaray aynu mataqaanaa banaankiisana lagu xidhmay waxaanu isticmaalaya maxay as a market structure shift entry point-keygana maxay baanu isticmaalaya marka la igu soo laabto and then waa la igu soo laabtay waa laga kacday waa lagu soo laabtay and then waa laga booday okay change in state of delivery-guna qaabkaasi buu u shaqeeyaa okay timeka haddaba baa ugu muhiimsan marka xilli maa la trade gareeya xilli maa tradeada qaadanaysaa baad focus garaynaysaa so maadaama badanaa forecast trade garaynayno waxaad focus garaynaysaa haddaad asianka trade garaynayso 8 p.m. to 11 p.m. New York time waa NY time hadda anu timekan isticmaalaa ee ku bedel keenan localka anigu badanaa waxaan isticmaalaa keenan mataqaanaa internationalka baan isticmaalaa New York timeka okay London keenan xilmu furmaya kilizonka Londonna waxa weeyaan 2 a.m. to 5 a.m. so waana New York time buu isaguna furmaa markaa haddaba time zone-kan aan siinaya waa maxay waxa weeyaan xilliga intaa u dhaxaysa ayuunbaad intri geli kartaa ka horeysa intri ma gelaysid ka dambaysana ma gelaysid so kan waa maxay London waa maxay 2 a.m. to 5 a.m. inta u dhaxaysa 3 saacadood baad trade-ka gelaysaa ka dambaysa ma gelaysid ka horeysana ma gelaysid
new yorkna waa maxay waa 8 to 12 p m baan iyadana focuska saaraynaa oo waa maxay waa new york sessionka mataqaanaa kilizoonkiisa so new york session kilizonkaasna waxaynu focus garaynaynaa time windowga inta u dhaxaysa ayun baynu trade gelaynaa intaa ba isla fahanay okay haddaba bal aynu isla eegno processka aynu marayna haddaba si aynu u trade galayno forever model kow waxaynu recap ku sameynaynaa wixii aynu haddeer soo sheegnay oo dhan baynu recap ku sameynaynaa waa kan process of entry checklistkeenu waa maxay waa istabuun waxaad eegaysaa priceku ma soo gaadhay internal rate liquiditygeena ama maxay fair value gapkeena ma soo gaadhay waa number kow taa maxaad leedahay tusaale ahaan haa baynu leenahay sida tusaalayaasha hore aynu xagga dambe ku arki doonno do we do we see SMT divergency at that level so in fair value gapka gudihiisa ama dhexdiisa ma ku aragnaa SMT ma helnay haa waa maxay intaas waa entry checklistki waxaan imka aan sheegaya waa maxay waa entry checklistka lagu gelayo inta haddaad ka weyda mid ka mid a ma gelaysa waad ka cararaysa suuqa okay talabaad waa saddexaad waa maxay waxaad eeganaysaa miyuu samaysmay change in state of deliverygeegii miyuu samaysmay haa wuu samaysmay oo key levelkeena maxaynu u eeganaynaa liquidity sweep in la sameeyo kana liquidity sweep ka sameeyeyna calaamadso open pricekiisa okay entry haddaba miyuu retraced ku sameeyey candlekaagii open price ku ahaa sorry ku ahaa change in state of delivery ku ahaa miyuu kugu soo laabtay hadday noqoto haa maxaad waad gelaysaa tradekaaga waa lagu furaya maxaana taargaraynaysaa 1 to 2 so istratijiyaddan forever model waxay backtestingka ugu fiican leedahay backtesting ugu fiican ku sameeyey aaninta ugu badan ku tradgarayaa risk reward ratio inuu 1 to 2 yahay kuma dhibayso kuma meeraysanayso kuma silcinayso si clean way ku siinaysaa 1 to 2 gaagaas okay haddaba bal sadaabkii baan isla eegaynaa marka sadaabyada iyo qaabkaan u qaadano so kan waa maxay waa a plus sarabka kana waa a plus sarab kana waa a sarabkeenaba baynu isla eegaynaa insha allah okay price keenan waxaynu eegaynaa internal rate liquidity geeni ma la yimid baynu eegaynaa haa waa la yimid internal rate liquidity geeni waa la yimid soo ma arkaysaan okay markuu price keeni internal rate liquidity geeni markuu yimid uu kanina yimid internal rate liquidity geeni laisla yimid kani miyuu qaaday may muu qaado ku feelgaroob inuu qaado lowgan so laakiin kani may qaaday haa oo way qaaday lowgan SMT baa dhacday soo maha so haddaba waxaynu u baahan nahay keebaa a plus noqonaya waxa a plus noqonaya mar walba lacagta ku feelgarowda ee ah maxay British IR hagso lama iman short weaker bear so weaker bearka ama bearka ku feelgarooba inuu lowga qaado ama hayga qaado baad ka tradeka ka fiican ka qaadanaysaa kaasaana a plus set up ku ah ma fahanteen okay marka intaasi ay dhacdo bullish IR-kaaga lagu yimid hadduu bullish yahayna mataqaanaa bullish IR-kaaga lagu yimaadana waa kana waan isla eegi doonaa kankiisana isla eegi doonaa haddii bullish IR-ka lagu yimaadana keebaad focus garaynaysaa waxaad focus garaynaysaa ka ku fiil garooba inuu qaado maxay hayga so kan waa maxay waa lagu fiil garooba lowga la qaado kana muxuu sameeyey wuxuu isna ku fiil garooba inuu qaado hayga so that means waa maxay trade a plus ka noqonaya waxa weeyaan waa inaad ka gashaa price-ka mar walba ku fiil garooba inuu qaado hayga ama lowga kaasaa ah maxay a plus trade okay labada lacagood waa kuwan okay lacagtani maxay qaaday iyadu haygay qaaday so tanina way ku filgarooday inay qaado soo maha so tanaynu ka galnay tanna waynu ka galnay soo ma tana balse u baxdee bilaa noqosho bilaa silcis bilaa rafasho cala duul baa u dhaqaaqday laakiin kani muxuu sameeyey wuu baxay wuu kusoo erlaatay haddana retracement buu sameeyey haddana wuu baxay haddana retracement buu sameeyey haddana wuu baxay so mar kastood aad ka qaato weaker bearka ka trade garayso waa mar kasta oo high plus sarabaad sii helayso ma fahanteen okay price keena inuu ku feelgaroobo inuu qaado haygiisan andan waa laga trade gareeyay so kan waa maxay isagu waa a plus sarabka maxay ama low quality-ga high quality sarabkii waa kan way soo sheegnay okay price keena inuu yimid fair value gapkeeni sida taniba u timid price keena uu ku feelgaroobo inuu qaado sorry uu qaado kan lowgii inuu qaado lowgii uu qaaday kan uu ku feelgaroobo lowga inuu qaado andan maxaa dhacday price keena inuu maxay sameeyay trading to the upside so ma arkaysaan andan maxaynu u baahan nahay inagu aynu focus garaynaynaa waxaynu focus garaynaynaa mar walba keebaa intriga clean kaa bixinaya keebaa high interest mataqaanaa high quality risk beerkaa bixiya so muhiimadan waa maxay inaynu focus garayno bayarka ku feelgarooba mar walbaba hayga ama lowga inuu qaado so intaan kusoo gabagabeynayaa inaad fahanteen baan rajeynayaa forever model course fiican ka hesheen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh